بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan rabaa inaan hawada u mariyo munaasabada ciida barakeysan ee Ciidul Adha ee muslimiinta adduunka ay u ciideysanayaan farxadoodii iyo muxuu ahaa maalintoodii weyneed inaan iraahdo ummadda Soomaaliyeed ciidan wanaagsan ee Ilaahayna gaarsiiyay inuu Ilaahay nabad ugu gaarsiiyo ciidan ciideedii adinkana nabad iyo bashbash aad ku ciidaan ayaan hawada idin soo marnahayaa meel kastoo joogtaan si leeg waxaan rabaa inaan ciidan munaasabadan weyn awgeed aan hambalyo u diro dhammaan ciidamada ku howlan amniga Soomaaliyeed meel kastoo joogaan iyo nooc kastoo yihiin waxaan idin leeyahay nabadda waad sugteen Ilaahay ha idin barakeeyo ummadda Soomaaliyeed idinka idinku jiiftaa waxaan idinku boorinayaa mar haddii lagu jiro ciidii barakeysnayd maxaa la yiraahdaa fadliga badnayd muxuu ahaa ummadaha islaamka ay malaayiin ayagoo ah ay maanta taagan yihiin meesha la yiraahdo banka Carafo una diyaar garoobahayaan muxuu ahaa si acmaashooda ku gudan lahaayeen ummadda Soomaaliyeed dalka gudihiisa joogto dhammaan ama caasimadda ha ahaato Muqdisho ama muxuu ahaa dawlad goboleedyada ha joogaan ciidamada muxuu ahaa ku howlan arrimaha amniga waxaan farayaa Ilaahay khayr ha siiye inay u diyaar garoobaan sida ay u sugi lahaayeen amniga ummadda Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa ku jiifta ayaga ku soo toosaysa ayaga ka dhur sugaysa ayaga inay amnigooda aad iyo aad u sugaan nimanka khawaarijta ah waxay isku dayayaan mar walba inay ka qaqashadaan ummadaha islaamka ah muxuu ahaa ciideysanayo muxuu ahaa farxahayo maxaa la yiraahdaa inay ka qaqashadaan oo ay maleegaan waxaan loo joogin iyo wax muxuu ahaa isku day ah oo isleeyihiin ku dhibaateeyo ummadda islaamka ah ee ciideysanayso farxadda muxuu ahaa isku soo banaanbaxaysa ku dhibaateeyo ay leeyihiin saas daradeed ciidamada ammaanka ama ciidamada amniga nooc kastoo yihiin haday yihiin nabad sugidda haday yihiin booliska haday yihiin militariga especially waliba police military marka la yiraahdo xasilinta aad u qayb qaadanayo dhamaantood waxaan farayaa inay maxaa la yiraahdaa si feejignaan leh oo muxuu ahaa raganimo leh oo maxaa la yiraahdaa gobonimo leh oo isku haleyn leh oo ummadda Soomaaliyeed mataqaanaa isku haleysay inay u soo jeestaan waxaan Ilaahay ka rajaynayaa dhagarta xunta oo ay maleegayaan nimanka khawaarijta ah inay fashilin doonaan nooc kasta oo soo maleegaan iyo meel kasta isku dayaan in waxaan leeyahay muxuu ahaa ciidanka Soomaaliyeed oo indho waaweyn ku fiirinaya ayaa meel kasta joogo insha Allah waxay isku dayaan waa la fashilin doonaa wadna fashilin jirteen wadna fashilin doontaan nin lagu sheexdo waa seexan ciidanka Soomaaliyeed ciidanka ammaanka ciidanka maxaa la yiraahdaa ku jira howlaha istaanbeeda ah ummadda Soomaaliyeed ay ciideysanayso iyo mar isan ciideysanin ba adinka iyo ammaankii muxuu ahaa ammaankooda adinka ku jiifaan muxuu ahaa iyo ku seexdeen ku dadaala ammaankan idin leeyahay nimanka khawaarijta la yiraahdo maxaa la yiraahdaa markii loogu adkaaday maxaa la yiraahdaa arrimihii dagaalkii kafoolka ahaa waxay isku dayayaan inay wax muxuu ahaa aan loo joogin iyo meel bac la dhigay iyo hoobiyo xiro meel laga soo tuuray iyo maxaa la yiraahdaa qashad mataqaanaa oo wadan leeyihiin waa joognaa inay sameeyaan ama caasimadda ha ahaato ama dhammaan dawlad goboleedyada kale muxuu ahaa dalka Soomaaliya ha ahaatee meel kastoo ciidamada joogaan inay feejignaan 100% ama heegan 100% ay galaan maxaa yeelay bari waxa ku beegan ciidii baa ku beegan ciidda hadii laga baxo saddexda maalmood oo ayaama tashriiq la yiraahdo markii laga baxo haddana waxa noo bilaaban doona hadii la yiraahdo imtixaankii dugsiga sare ayaa noo bilaaban doono ayadana waxa la yiraahdaa ciidamada ammaanka booliska waliba gaar ahaan booliska waa iyaga saas si leeg waa inay maxaa la yiraahdaa ayadana iska saaraan waajib xoog leh iska saaraan oo maxaa la yiraahdaa arintaas ardaydanadii ubaxanagii imtixaanka u fadhiyay waa inay imtixaankooda si nabad ah ay ku galaan waa inay imtixaankooda si sharaf leh ay ku galaan waa inay imtixaankooda ku galaan si baraad la'aan waa inay ku galaan waa inay ammaan ku galaan ayadana waa taqaana hawsha horad u hayseene waxaan idin leeyahay hawshii ayada ahayd si laba jibaara taasna waxa weyn lagu saxdo saxan bay barad soo galaysaa saas si leeg hadii laga baxo imtixaankaas waxa ku xigi doona maalmihii xurriyadda oo ku beegan 26 Juun
تضوي جون وأيضا لحي لاتنك جون ومالنتي قبل وقوي حرية قاتين iyo 27 Juun oo ah maalintii Djibouti ay xorriyadda qaadatay iyo 1 Luulyo oo ah maalintii koonfurta muxuu ahaa Soomaaliya xorriyadda qaadatay isla markaasna maalintii midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ay midoobeen inta waa lagu soo fool leeyihiin marka maxaa u yaala ciidamada waxa u yaala inay galaan heegan joogto ah waxa u yaala inay galaan maxaa la yiraahdaa standby joogto ah waxa u yaala inay galaan maxaa la yiraahdaa wixii qaqashada waday ee gobolkooda sii dhacayay inay isku dayin gol jileec ama meel ay ka soo galaan marka waa standby guud oo la galahayo oo soo joodka hore ee ku jirteen aad ka soo xoojinaysiin ba ayadana ma taqaan halkaan idinka farahaya sidaas si leeg ciidamada kale ee maxaa la yiraahdaa hadii furmaha ku jiray meel kasta ku jiray ayaguna ma taqaan mar kastaba waxay u joogeen maxaa la yiraahdaa u soo jeedeen iska dhicinta cadawga weyn iska dhiciyeen cadawgana waa taag dareysta markaan waa neef la gowracageeda kama waabto marka maadaama neef la gowracageeda kama waabto uu yahay yaanan geedihii muxuu ahaa lugta u dambeysay rafin hayaane waa inaysan ugu rafinin waa inay dadka nabad ku ciideystaan waa inay dadka nabad muxuu ahaa xurriyadda maalmaha xurriyadda muxuu ahaa ku waxeeyaan ilaahay idankiis intaas ayaan ciidankana farahayaa waxaan filahayaa inay qaadan doonaan oo soo jeed iyo maxaa la yiraahdaa iyo standby weyn ay gali doonaan waxaan hambalyo u dirahayaa dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay waa idinku seexday nabad baa lagu seexday dalka muxuu ahaa amnigiisa uu soo hagaagay si aad uu soo hagaagay inaan isdhiganin oo aanan dhihin nimankii waa ka adkaanay waa isdhiganaynaa oo gol jileec ay naga helaan ayaan maxaa la yiraahdaa ya munaasabadan uga faa'iideysanaynaa insha Allah waa guuleysanaynaa ciid wanaagsan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh